kulanti waxaan daawadal kuna soo dhawaada wararkii warbixinadii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka oo 28 bisha January 2021 qodobada wararkeena waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu saxeexay 13 kursi ee loo kordhiyay golaha aqalka sare ee matalaadda gobolka Banaadir. dowladana waxa ay sidoo kale ka hor imaatay sharci darro ku tilmaamtay gudiyadii ay magacaabeen madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Khayro wasiirkiisa amniga xildhibaan Ducaale u dhiibay xil muhiim ah, wasiiro ka socda dowladda gaaray gobolka Gedo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qayb ka noqday xiisad xooggan oo ka taagan gudaha Hargeysa. qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo xiiso leh ayaanu wadayaal ku soo qaadan doona wararkeena waanta iyo warbaahinta Ogaal Media. haddii aad ka mid tahay saaxiibada wararkeena warbixinadeena ku cusub, fadlan ka mid noqo asxaabteena, subscribe saarana si wadaag asxaabaha kale ee aad baraha bulshada ku wadaagtaan. haddii aan wararkeena ku bilowno, dowladda dhexe ee federaalka ayaa waxay war ka soo saartay magacaabistii gudiyada doorashooyinka ay sameeyeen madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland kadib waan ay beesha caalamku ka dhex sameysay dhinacyada isku haya doorashada muddadii ugu dambeysayba. war-saxaafadeed goor dhoweed ka soo baxay gudaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa uu ku siixnaa wasiirka Mukhtaar Afrax ayaa lagu sheegay in wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha aysan midna soo gaarin magacaabista gudiyada dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ee maamulaya doorashooyinka heer dowlad goboleed. sidoo kalena waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in uusan sax ahayn hanaanka ay maamuladaasi u soo magacaabeen gudiyada doorashooyinkan. waxa uuna wasiirku yiri heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay gaareen magaalada Muqdisho 17 September 2020 oo meel mariyaan golaha shacabka iyo abraacyadii kulli faaqraaba sida wadajirka loo siixay 1 October 2020 waxay qeexayeen hanaanka doorashada lagu magacaabayo gudiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay mar kale ku celinaysaa gudiyada ay shaaciyaan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay yihiin kuwa baalmarsan hanaanka sharciga ee loo maro magacaabista gudiyada. arrintan ayaan imaanaysaa xilli ay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay bogooda ku shaaciyeen magacaabista xubnaha gudiyada doorashooyinka xilli xiisad hanaanka doorashada ay ka taagan tahay dalka. labada maamul goboleed ayaa sidoo kale ku baaqay wada hadalka hor inta aysan dhammaanba bishan kamana hadal arrintaasi dowladda federaalka marka laga reebo inay ku gacan saartay gudiyada ay magacaabeen labada madaxweyne. si kastaba arrintan ayaa mar kale walaac laga muujinayaa inay sii fogeyn karto labada maamul goboleed ee ku soo dabcay waanwaantii beesha caalamka oo iyagu ka dambeysay magacaabista cagajiidka ay sameynayeen kama dambeystii maanta. dhanka kalena madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu maanta saxiixay qaraarka golaha shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya soo gudbiyeen ee ku aadanaad matalaadda uu gobolka Banaadir ku yeelanayo golaha aqalka sare. madaxweynaha ayaa cuskaday meelmarinta go'aanka golaha shacabka 27 bishii June 2020 geedi socodkii dheeraa ee laga soo maray raadinta matalaadda uu gobolka Banaadir ku yeeshay aqalka sare. cabashooyinka ay shacabka gobolka Banaadir ka muujiyeen matalaad la'aanta muddaxileedka aqalka sare ee baarlamaanka tobanaad ee xuquuqda aasaasiga oo dastuuriga ku meel gaarka siiyay si lamid ah gobolada kale ee dalka iyo codsiyada isdabajooga ah ee hanaanka ee hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed. sidaa daraaddeed madaxweynaha waxa uu xeeriyey inuu gobolka Banaadir ku yeesho baarlamaanka 13 kursi. madaxweyne Farmaajo ayaana faray golaha xukuumadda inay xeeriyaan habraac u gaara matalaadda gobolka Banaadir oo ay ka muuqato isku dheelitirnaan bulshada Soomaaliyeed iyadoo qadarin gaara la siinayo deegaanka caasimadda ah lana fulinayo inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee baarlamaanka 11 ee hadda lagu jiro. dhanka kalena wasaarihii hore ee dalka mudane Xasan Cali Khayre ahna musharax u taagan xilka madaxweynimada doorashada dalka ayaa waxa uu xil muhiim ah u magacaabay wasiirka amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo loo dhiibay xilkaasi. Islow ayaana saaxiib dhow waxay ahaayeen Xasan Cali Khayre ayaana noqday madaxa ololaha ee musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre. si gaar ah waxa uu qaabilsan yahay baa yiri dhaadhicinta siyaasiyiinta inay taageeraan musharaxa. wararka aan helnay ayaa sheegay in hawshan badankeeda laga dhex raadin doono xildhibaano imaan doona isla markaasna haddii uu soo laabto xildhibaan Ducaale uu qaban doono qaybta ugu muhiimsan ee shaqadan maadaama laga rabo inuu codadka ka raadiyo xildhibaanada soo socdo. Islow waa wasiirka amniga ee Soomaaliya ahaa muddadii ay jirtay xukuumadda Xasan Cali Khayre. saaxiib dhowna la ah Xasan Cali Khayre wuxuu ka mid ahaa wasiiro tiro kooban oo xilka qaadis lagu sameeyay isla markiina si weyn u difaacay maalintii xilka qaadista lagu sameeyay gudaha baarlamaanka Soomaaliya. Ducaale ayaana laga reebay xukuumaddu soo dhisay Ra'iisul Wasaare Roble sababo la xiriira inuu aad ugu dhawaayo Khayre waxaana lagu bedelay Xasan Xundube oo isku beeryihiin. Ducaale ayaana la sheegay inuu yahay nin aad u degan hadal kaaban oo aan galgal badan lahayn, taasi oo su'aal gelinaysa xeeladaha ololaha Khayre iyo sida uu u fulinayo in qof aan siyaasad ahaan lahayn xulufo badan uu codad uga soo dhicin doono musharax Xasan Cali Khayre. magaalada Doolow
waxaa maanta gaaray wafdi wasiiro kuwa wafdigan oo ayaan waxaa ka koobnaa wasiiro uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka cadaaladda iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka. sidoo kalena wasiiradii saraakiisha la socda ayaa kulan la qaatay maamulka degmada Doolo iyo waxgaradka deegaankaas oo ah mid isxub wareysa sida warbixintan ku helino. intaas kadib wafdiga ay dirtay dowladda Soomaaliya u sii socdaalay dhinaca degmada Balad Xaabo oo dhawaani ka dhacay dagaal culus oo khasaare geystay. xubnahan ayaa markay tagaan degmada Balad Xaabo qiimeyn dhab ah ku sameyn doona saameynta ka dhalatay dagaalkii cuslaa ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa wasiir janan ku dhexmaray magaalada iyo xeeladaha iyo xaaladda guud sida ay haatan tahay. xaaladda Balad Xaabo ayaa saacadihii ugu dambeeyay ahayd mid degan, waxaana magaalada oo dhani iyo duleedkeedaba ku sugan ciidamada dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina daawadayaal, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay qayb ka noqday xiisad xooggan ee ka dhex taagan oo loosan siyaasadeed isku hayo musharaxnimada doorashada la filayo inay ka qabsoonto Somaliland. sida xogta ay ku heshay warbaahinta ogaan, Biixi ayaana garabka saaray maayarka uu muddada ka dhamaatay ee magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Solteeko, halka uu gaashaanka u daruuray siyaasiga ruucadaaga ee Cabdikariin Axmed Booge. labada nin ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka dhexaloosnayd xiisad xooggan oo la xiriirtay xilka maayarka Hargeysa oo xilligan uu hayo ninka Solteeko la dhaho oo rabo inuu mar kale ku soo laabto xilkan uu muddada badan hayay. Cabdikariin Mooge ayaa horey wasiirku ku-xigeen uga soo noqday xukuumadda Axmed Siilaayo ayaa dhawaan kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliland. wuxuu Biixi u sheegay inuusan gacan ka geysanaynin xilka uu u tartamayo sida ay ilo xog ogaal u sheegay warbaahinta Ogaal Media. waxaana Muuse Biixi Cabdi dadaal badan uu ku bixinayaa in siyaasiga qabanaya xilkan maayarka caasimadda Hargeysa uu noqdo mid uu gacanta ku hayo, iyadoo ay ilo xog ogaal u sheegeen caasimadda in madaxweynaha uu dabada ka riixay dib u doorasho uu Solteeko noqdo. mana aha markii ugu horeysay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu go'aan dhexdhexaadnimada ka baxsan ka qaato siyaasiyiinta hirdanka uga jira doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo ay xusid mudan tahay inuu siyaasiyiin badan ka ceeriyay baljiri xisbiga kulmiye oo isagu ka tirsan yahay. Muuse Biixi Cabdi ayaana sidoo kale waxa uu raadinayaa siyaasiyiin isaga ku siyaasadda kana taageeri doono olaha doorashada xilliga la gaaro marka ay noqoto doorashada gudaha Soomaaliland. Muuse Biixi Cabdi ayaana inta badan xilalka waxa uu magacaaba dad aad isaga ugu dhow ay saaxiibo qaarkood yihiin, halka qaarkoodna ay yihiin baljiri kuwo isaga danihiisa u adeega. intaas ayaana daawadayaal ku soo gabagabeynaa tan iyo kulanti dambe waxaan kaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo.